بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتنتشي الأكوان يا حامل القرآن يا حامل القرآن. الإسلام قدرنا يكون إجماعين إنه على ضلالة بعضي وفتن لأنه هو التنبيه وأنك الزمن في سبوع دواء قرن كوي سونات كوني بقولي كوني كوم مركي هاي ولا شيء هذا كوني أفر بقولي حاجة بهذا الوجه ورسبوع دواء هذا وقت يسبوع دواء تذكر مركو هذا سجى صدق الماضي مكان هذا الوجه فرتيس بعلماء بجبتي أو صحابتي تابعين في سلف صالحي أئمة الإسلام كلهم مركا هو يمد سعودي وقدر شيء تذكر أبيت نشاخ وين بها عبد الوهاب نوين بها ولذلك في صنبان بن عبد الوهاب الليجري من عالم هو وين بها لوضع وضع هو يكدجين من كان فتنية بلايا كسر نقطة ضد بدن بسوي في كوبا اليوم دون إلى ذي ويكدجين مركا وأنين علماء الإسلام كأي كدجين وكتبته تاريخ ذا كقرن مارتين إنه نكا هانين فتنة يسمى أهل الضلال سافر علماء الإسلام قدام قرن إمام في ويناء مفتيق حرم الأورنج اللي مكان لقدم بيه إمام الدحلاني أيا قري أو كتاب قري في ردي تقري مركا محمد بن عبد الوهاب لين سافوها دينار عقيدة سوء وكان تهيبوها من علماء الإسلام قدام قال كنت الإمام بوها من ذاتك اللاي أو دمبي بوها مركا وننزل وحونا كسر كيمة سعودي وليبا دينا عن نجد اللي يدازه ومصنبه عليه الصلاة والسلام مالك ودعيه ووحويري اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا إله شام يمن إله ما بركه فاستحاول يا رسول الله وفي نجدنا فصنبه دعاء هذا كل علي وفجر اللهم بارك لنا في شامنا ويمننا صدح بارمرك ونبه دعيه يومك أفراد وحير هناك الزلازل والفتن وفيها يزلع قرن الشيطان meeshaas fitna iyo zalzalo uma ka soo baxayso shaydaanka geeskiisa ka soo baxay mid markii la gooyana ku kala ka soo dhalanay koowi muslimatu kadaab ninkii la oran oo rasuulku noolba soo baxay oo nabinimada sheegtay ayaa halka ka soo baxay markuu rasuulku dhintay Abu Bakar oo khaliifka ahaa baa lala dagaalamay meesha yamaama la yiraahdo dagaal xun baa lagu la galay oo saxaabada kullu aatay 30 kun saxaabi ka badan baa ku dhimatay halkaas lagu dilay saxaabada ragii ugu akhyaarsanaa meeshaas ay ku dhamaan وين أنا بقول ماشي أيضا هاي محمد بن عبد الوهاب كتب هو ماشي نفسه الدرعية اللي إذا ورين على نجدي سعود دين على نجدي ورين على فرحه كتب يوجد مركب ماشي أسوق كتب حي وقت يجي سعود ذنبي هذا مركب تعرف هذه هجرة النبي يكون هالبقول يتوي كوبي وقشي يعني أبيه بكدقي ولا الكيس عالم بكدقي أئمة الإسلام قرن بكدقي سبتي تسيرة يفوق قرنتها يعني wuxuu yiri waxyaalihii uu yiri waxa kamid ahay in aniga wax iga horeeyay oo mashaayikhdayda iyo wax iga horeeyay wax aniga iga horeeyay oo tawxiidka macnihiisa fahmay ma jiro wax aniga iga horeeyay tawxiidka macnihiisa fahmay ma jiro marka macnaheedu waxa weeye dadku baadinimay ku jireen aniga un baa hadda sidii soo rasuul ilaahay soo diray ana ilaahay marka nin baadi oo culimada ilaahay ku itfaaqeen ba dadkan yani dibka badan ee hadda dadkii diinta ka wareerinayay wax walbaba yani qaalimada ku tilmaamay waxa uu isba sheeganay jamaacadiis wa firqadaas ehlu dalaalka hal qaybna ma noqonay ayagii baa si kala daran wada waxaad moodaa firqadaas adduunyada dhan bay ku faaftay markii yani waxayna dariiqa ay hayaan waa niman khawaarij la yiraahdo dariiqoodii iyo sifadoodii bay leeyihiin khawaarij niman la yiraahdo xadiis tilmaamaya ورسول الله عليه الصلاة والسلام دائر وقرآن كأخرنا وعبادة آد وجود ذلك مكان أركتم أدو عبادة مكان أصلا هذا الحقيرة وبعد كعبادة بدن صوم بدن لكن إيمان كون هلك أدافين هي جلد النوم
nimankaas khawaarij baa la oran jiray. Sayid cali baa la dagaalamay oo lillahi waxa ugu horreeyay Sayid cali baa ugu horreeyay ayagoo fara badan markii oo saxaabada uu khilaaf ka dhex dhacay oo Sayid cali iyo Mucaawiya ay dagaalameen oo saxaabo fara badan halka ay ku jireen markii dambana dagaalkii la joojiyay la wada hadlay taxkiim buu ogolaaday in kitaabka ilaahay la isku xukumo oo wada hadal la sameeyo markii hore Sayid cali bay la jireen markuu taxkiimka ogolaaday bay ka baxeen oo waxay yidhahdeen laa xukma illa lillah Sayid calina waxay yidhahdeen gaal baa mutaadiga hadaad ba ogolaatay inaad wada hadal ka samayso war inaad muslimiinta dhiigooda badbaadina miyaad diidaysaan maya haddaad inaad Mucaawiya la hadashaba aada ogolaatay gaal baaba ta yidhahda halkaas marka Sayid cali wuu la dagaalamay wuu laayay 10 kun way ka badnaayeen baa leeyahay wax yar baa ka soo haray nimanka khawaarij baa leeyahay nimankan hadda xun arkayso oo dhan sifaadka khawaarijta un bay leeyihiin sifaadka khawaarijta ay leeyihiin maxaa yeelay waxaa xadiidka tilmaantiisa waxaa ka mid ah yaqtuluuna ahla alislaami wayadacuuna ahla alawsaan dadka muslimiinta oo iimaanka muslimka unbay laynayaan kuwa sanamka caabudo gaalada ma laynayaan waa sifadoodii wey waxaan marka hadda anagana qabsaday ee anaga noogu badarana hadda anaga oo fidnada ugu noqday waddanka anaga ku habsaday balaayada ku habsatay waa firqadaas daalada halkaa ka timid ee fidnada ah ayagii baa hadda qolaba qolasay uga sii baxaysay sii kala bari noqday hadda waxay marayaan oo waxaas caalamka meelay ka dhacday ma jiro waxa kan maytaadka xataa dhinta qodanay baqriyi bay dadkii kala soo baxayaan kuwii noolaana way dilayaan kuwii noolaana ma badbaadinayaan kuwii dhintana way dilayaan dadki way iska laynayaan waa artay wax bilaa sharci ah waa niman iska waxba aqoon dhalinyaro yar yaraho kuwii mooryaanta ahaan jiray oo shalay kuwa hogaamiye kooxeedka la socon jiray kuwii baa intii cumaamada madaxa loogu xiray oo garka wada daysteen baa sheekh hebel iyo sheekh hebel loo bixiyey waa isla iyagna soo oo magacyihii loo bedelo abu mansuur iyo abu xasan iyo abu kalaaba loo bixiyey nimankii aan naqaano cali iyo cabdi iyo warsamo aha unbaa abu muslim iyo abu khaalid iyo abu mansuur bay loo wada wejigana wuu u wada xiray oo cid arkaysa ma jiro berri hadda hadii adan la qabsado wejiga garkana way iska xiray wejigana way furayaan waana maxamedkiisa caligiisa aad taqaanay wey wuu kusoo noqonaya cid taqaano ma jirto sooma markaasa nin walba wuxuu doona ka samaynaya dadkay dilayaan gacmahay ka jarayaan waxay doonaan bay samaynayaan waxaan ayaan hore aan fiirinayay yar kuway gacantii lugta ka goynayeen kamid oo youtube-ka ku jirtay waad aragtay ninkaa markii markii lagu sameeyey iyo noocii loo sameeyey marka arag waa wax diinta islaamka wax la kule marka qofku waxaa rabaa markuu dembi galo oo la qisaasayo in shareecada islaamka loo keeno la xukumo oo ninkii qaadiga ah dawladeedaba waxaa xukunka islaamka fulin karo dawladda islaamka yaa fulin karto dawladdu waa inay jirto kala dambayd waa inay jirto waa inay wasaaraduhu dhan dhisan yihiin waa inuu qaadigu shaqaynayo waa inuu xaakimku xukumo qofka dembigiisii dembigu ku galayo qodobka la sheego markhaati loo yeelo dembigiisa la cadeeyo dad inti laiska soo qabta la yidhahdo bay xadeen oo gacanta laiska gooyo ma qirtaas qof hadda anigu intuu ii yimaado uu dembi iska qirta ma dili karo qof hadda ii yimaado dembi ma dili karo ma dili karaan ayagu waa been wax qirta male waxaa weli aada usoo yaabanayd wuxuu yidhi wiilkaas intii lugta laiga gooyey oo laiga gooyey lugta ya markii muddo ay kasoo wareegtay xoogaa ah ya haddana mar labaad la yimaado meel khaladaa laga gooyey markaasa mar labaad haddana laigu celiyo qaybtiisa la gooya haddana qayb kale laga sii gooyey marka ma waxaas lagu leeyahay oo lugti inta laga goyno intaan ka goyno khalad bay u dhacdo haddana intaan laga gooyo ma waxaasa sharciga wax sharciisaan lagu xukumi kula ma jirto taas haddii sharciisaan lagu xukumi lahaa wuxuu dembigu leeyahay la caddayn lahaa meesha uu mutaystaa laga goyn lahaa sharcigu siduu yahay loo sheegi lahaa cid iskaga daba imaantayna ma jirto sharciga islaamka in la isku xukumo waa wax ilahay noogu talagal noo soo dejiyey lakin dawladdaa fulin karta marka dadkaas waa nimanka khawaarijta la yidhaahdo sifaadkoodii bay leeyihiin dadkay ku gaalnimo xukminayaan qur-aankii bay akrinayaan dadka ehlu islaamkaa bay leynayaan qofka asagoo ehlu islaam tawxiidsanayo masaajid kasoo baxay bay dilayaan o leeyihin gaal baata maxaan ku gaalo maxaan ku gaaloobay gaal baata ila way dilayaan sooma keligood ma ogi ayaga ma wax kale islam u arkaan ba ma jirto hawlaha islaamka waxay u arkaan qaniimo haweenka hataa way wadanayaan oo waxay u arkaan inay mata nisaa ulkufaar oo kale soo wadanayaan waxay iska qaadanayaanba waxa weye marka dee meesha diin ma taale waxaa fiican marka qofka yani lagu baraarugsanaado oo waxa noocaas oo kaleeta iyon ilmaheena iyo dadkeena iyona khaldina in macnaha lagu baraarugsanaada la doonaya oo qofka la yidhaahdo
ودينت إسلام كحبك موجودة غير ملك كفر يصلي ذا ساسا ونسل مركا نكا الصفات كيسون ساسوها واحد سيرزي سرعوا لنا سلمانتي سلوا لنا وخوارج مركا هلا يدي تونا جزاكم الله إن شاء الله. بارك الله